bismillaahi raxmaani raxiim ku soo dhawaada daawadayaal warka galwareed miidiya qodobada ku daawad doontaan waxa kamid ah xilliga ay dhacaysa doorashada Hirshabelle la shaaciyay madaxweyne Waaro xil loo ballan qaaday si dawladda doorashada ugu wareejiyo saldhigyaal shabaab ku lahaayeen Jubbada Dhexe oo duqeymo lagu burburiyay bandu soconaya 20 cisho lagu soo rogay wadda ku taala Muqdisho afar kamid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug oo qaadacay doorashada maamulka iyo in dhacdo shaaciyay inay korortay kumilanka al-shabaab ee hay'adaha dawladda haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 22 bisha koowaad January sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale oo ka dheeraada ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowna Hirshabelle xilliga ay dhacayso doorashada maamulka Hirshabelle ayaa la shaaciyay waxaana madaxweynaha maamulka loo ballan qaaday xil aad u sareeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare xubno ka tirsan igad iyo qaar kamid ah safiirada beesha caalamka ayaa isfaham ka gaaray xilliga ay qabsoomayso doorashada Hirshabelle kadib kulamo ka dhacay Muqdisho xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegay in dhinacyada ay ku heshiiyeen in doorashada Hirshabelle la qabto bilaha Maaj iyo Abriil sanadkan waqtigeedana laga soo hormariyo 4 ilaa 3 bil sidoo kale dhinacyada ayaa isku afgartay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay maamulka kala shaqeyso jawiga doorashada iyadoo ay wasaaradda waajib ka saaran tahay in doorashada furan ka qabsanto magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka waray heshay caasimadda online ayaa sheegay in madaxweyne Waare lagu heshiiyay in loo magacaabo xil sare oo ka tirsan xafiiska igad ee Soomaaliya kaasoo ah mid ku yimaada codsiga iyo magacaabista dawladda Soomaaliya sidoo kale waxaa jira warar sheegay in madaxweyne Waare lala galay heshiis kale oo aan la soo bandhigin kaasoo u dhaxeeya isaga iyo xukuumadda Kheyre waxaana heshiiskaas lagu sheegay inuu yahay shuruud ku xiran shaacinta xilliga doorashada haddii ay xukuumadda ka soo bixi weysana laga yaabo in madaxweyne Waaro iska diido natiijada heshiiska doorashada Hirshabelle ee soo hormarinta ah waxaa la aaminsan yahay in xukuumadda Soomaaliya ay dhib badan ka mari doonin dhismaha maamulka Hirshabelle markii loo eego Galmudug oo ay ku raagtay haatanna wali khilaaf uu taagan yahay Hirshabelle hadda waxa saameyn weyn ku leh dawladda Soomaaliya waana sababta keenaysa in dawladda aysan walwal badanba ka qabin xaaladda doorasho ee maamulka Hirshabelle dhinaca kale madaxweyne Waare ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu gaaray magaalada Beledweyne wuxuuna ka wadaa kulamo xasaasi ah madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo xalay kooyday Beledweyne ayaa kulamo ka bilaabay gudaha magaaladaasi maanta kulamadu ah kuwa xasaasi ah ayaa waxa diiradda lagu saarayaa xiisadda gobolka Hiiraan gaar ahaan khilaafka ka taagan degmada Buulobarde ee gobolkaasi Waare ayaa kulamadaas la qaadanaya waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee Beledweyne isagoo ka dalbaday inay taageeraan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka salka ku haya dhinaca maamulka ee wali ka taagan gudaha degmada Buulobarde sidoo kale waxa uu tilmaamay in maamul ahaan ay ka go'aantaa sidii xal looga gaari lahaa xiisadaha ka jira Hiiraan oo muddo wajahaysay culays siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda Hirshabelle siyaasiyiinta gobolka iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka dhawaan madaxweynaha Hirshabelle iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Caadle ayaa tagay Buulobarde balse wax natiijo ah kama soo bixin socdaalkiisii Hirshabelle ayaa u muuqatay inay ku fashilantay siyaasadda Hiiraan waana taas sabab u ah sida la sheegay isbeddelka degdega ah ay ku sameeyso mas'uuliyiinta gobolkaasi markaana aan fiirino daawadayaal Jubbaland wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in duqeymo xoogan diyaarada dagaal ay ka fuliyeen gobolkaasi duqeymaha oo ahaa kuwa isxixigay ayaa waxaa lagu garaacay deegaanka Hargeysa Yarey degmada Saakow iyo deegaano u dhaxeeya magaalooyinka Jilib iyo Bu'aale oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab wararka ayaa sheegay in duqeynta koobaad laga fuliyay deegaanka Hargeysa Yarey gaar ahaan saldhigay shabaabku ku leeyihiin halkaasi kaasoo gabi ahaanba la burburiyay sidoo kalena lagu dilay dagaalamayaal iyo amiiro ku sugnaa sida ay noo sheegeen ila lagu kalsoon yahay duqeyn kale oo xigtay ayaa sidoo kale ka dhacday agagaarka degmada Saakow ee gobolkaasi taasoo la soo warinayo in lagu burburiyay xiro iyo hub u kaydsanaa al-shabaab sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in duqeyn kale oo dhanka cirka ah xalay laga fuliyay inta u dhaxaysa degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe tuulooyin ku yaala saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay horjooga sare oo xiriir dhow la lahaa hogaamiyaha guud ee al-shabaab Axmed Abu Cubayda
sirdoonka Soomaaliya ma shaacin magaca sargaalkaas lagu dilay duqeymaha ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe. Dhanka kale ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay dhinaca xarakada Al-Shabaab oo ku aadan weeraradan cusub oo ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe. muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada huwanta ah oo garabka helaya diyaaradaha Mareykanka ayaa kordhiyay dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobolada Jubbooyinka. maalmo ka hor ciidamo ka tirsan daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ee ka howlgala Jubbaland ayaa waxay la wareegeen deegaano badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmooyinka Jamaame iyo Badhaadhe oo ay Bangeeni ka mid tahay. Markaana Muqdisho, bandow soconaya 20 cisho ayaa lagu soo rogay waddo ku taalla Muqdisho, gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya. laga soo bilaabo shalay waxaa bandow lagu soo rogay waddo muhiim ah oo soo gasha madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna amarkan ka soo baxay taliska Villa Soomaaliya. xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegay in shalay lagu wargeliyay maqaayadaha Dalsan iyo Blue Sky inaysan bannaanka soo dhigi karin kuraas wixii ka dambeeya 4 galabnimo. bandowgan ayaa saaran kaliya wadada madaxtooyada ka soo gasha dhanka isgoyska Xaawataako, waxaana la sheegayaa inuu amarkan socon doono ilaa 10 bisha labaad ee February ee sanadkan. sidoo kale waxaa la joojiyay isticmaalka gaadiidka ee wadadaas iyo isu socodka dadweynaha sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka iyo qaar ka mid ah dad xalay lagu celiyay aagaasi. dhowr qof ayaa lagu hor istaagay habeenkii xalayaha inay ka soo gudbaan wadada Xaawataako oo ah halka uu bandowgu saaran yahay, waxaana xiran ilaa madaxtooyada Soomaaliya. lama oga sababta ka dambeysa go'aankan, balse xog aan helnay ayaa sheegaysa in qorshuhu yahay in la daahfuro tiyaatarka qaranka marka la gaaro 8 bisha soo haysa ee February ee sanadkan, markaasoo ku beegan 3 sano guuradii ka soo wareegtay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxaa jira warar sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay damacsan tahay in qarax ismiidaamin ah ay ku qaado tiyaatarka qaranka iyo dhismaha maktabadda oo isbarbar yaal oo labaduba lagu sameeyay dayactir muddo dheer kadib. bilowgii dhismaha tiyaatarka sanadkii 2018 dhamaadkii bishii December, Al-Shabaab ayaa qarax ismiidaamin ah lagana soo buuxiyay gaari weyn oo ay ku soo rareen walxaha qaraxa waxay ku dhufteen dhismaha tiyaatarka, waxaana qaraxa ku geeriyooday dad aad u fara badan ayna ka mid ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo askar ilaalinaysa madaxtooyada Soomaaliya. 4 ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ayaa qaadacay doorashada dowladda Soomaaliya sida xoogga ah ay uga wada magaalada Dhuusamareeb. 4 ka mid ah musharaxiinta u sharaxan xafiiska madaxtooyada Galmudug ayaa ku hor yimid jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka uu soo saaray garab ka mid ah guddigii doorashada ee talaadadii kala qaybsamay. musharaxiinta kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka, Cabdullaahi Faarax Weeliye kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka, Cabdi Dheere iyo Kamaal Guutaale oo lagu tirinayay musharaxiinta mucaaradka ah ayaa si rasmi ah uga hor yimid jadwalkaasi. war saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen inay dowladda federaalka garab gaar ah u afduubatay hanaanka maamul sameynta Galmudug, taasina ay tahay mid aan la aqbali karin. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaanan la tixgelin cabashadii musharaxiinta ay ku aadaneed in 21 maalmood dib loo dhigo doorashada sababa ku aadan iyagoo aan weli fursad u helin inay la kulmaan xildhibaanada, sidoo kalena aan la tixgelin heshiisyadii hore loo wada gaaray. musharaxiinta ayaa waxay ku taliyeen in laga gudbo sharciyada garab gaar ah lagu afduubayo guddiga doorashada, sidoo kalena uu guddoonka baarlamaanka ka shaqeeyo mideynta guddiga doorashada ee labada garab u kala jabay. go'aankan ayaa waxaa loo arkaa mid xoojinaya khilaafka ba'an ee wiiqay geedi socodka dhismaha Galmudugta cusub, taasoo ay eed ugu weyn qaadi doonto dowladda federaalka sida la sheegayo. shalay waxaa 2 garab u kala jabay guddigii doorashada Galmudug ee maalin ka hor baarlamaanku ay ansixiyeen. dowladda Soomaaliya ayaa in muddo waxa lagu xamanayay in ay wadato mid ka mid ah musharaxiinta Galmudug ka lagu magacaabo Cabdi Kaari Qorqor kana mid ah golaha wasiirada, inkastoo maalmo ka hor xilkan uu iska casilay, balse eedeynta ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ahayd mid soo ifbixiday. haddii dowladda federaalka loo wakiishay maamul sameynta dadka reer Galmudug ayay dadku ku doodayaan inay ahayd inay doorashada Galmudug ka dhigto mid daahfuran beddelkii ay garab gaar ah taageero ugu muujin lahaayeen. ahlu sunna ayaa ka soo horjeeda qaabka ay haatan dowladda Soomaaliya u wado dhismaha Galmudug. Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in haddii khilaafkan la xalin ay ka soo baxdo 2 madaxweyne, halka Xaaf madaxweynaha Galmudug doorasho saddexaad uu ka wado
magaalada Gaalkacyo. Dowladda Soomaaliya ayaa dhib badan ka maraysa dhismaha maamul samaynta Galmudug, waxayna ku qaadatay muddo ku dhow 1 sano in ay soo cusho baarlamaanka Galmudug, balse haatan uu khilaaf kala soo ifbaxayo. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Galwareed Media.